I need a weapon. Help! I'm being surrounded! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي الكسود وايد channelka maanta waxaan rabaa inaan tuso habka PUBG Mobile looga saaro laaginka ama looga saaro dhigdhiga. Hadaba saaxiibayaal casharka intaas ku saabsan yahay maanta. Fadlan haddii markii kugu horreysay channelka soo booqato subscribe garee, dawrana way socdaan like garee, aad ba mahadsantiin. Saaxiibayaal labada application ee naga caawin doona maanta inaan laaginka ka saarno PUBG Mobile waa labada application ee shaashada noo saaran. وانا اولين انا هل ابلكيشن يدي سو gudbiyo laakiin dadka ayaan isku mobileysan saaxiibayaal marka waxa laga yaabaa in hal application uu shaqeyn waayo marka sida daraadeed labada application ku soo qaaday labada application shaashada noo saaran waa labada application ay ugu fiican ee PUBG laaginka laga saaro. hadaba saaxiibayaal application haduu ku shaqeyn waayo kan kale waa qasab inuu ku shaqeeyo marka labada application waa kuwa shaashada noo saaran. marka labada application waxaad ka heli kartaa Play Store ka heli kartaa marka waxaad tagaysaa qaybta Play Store ka soo furtaa kadib qaybta search ka aasa waxaad ku qorsaa GTF X tool kadib search baad leedahay waa kan u sareeya saaxiibayaal install ba sooransa application labaadna waxa la yiraahdaa PGT waa kan u sareeya isagana wad la soo degaysaa labada application ba waa free marka labada application la soo degtid kadib kalba kii ku anfaco baad ka qaadanaysaa labada application hadduu mid ku anfaco waa halkeeda haddii ka kale ku anfacna waa halkeeda labada application waa macquul mid ahaan inuu ku anfaco marka saaxiibayaal labada application tayada aad u sareeyaan marka application koowaad hadayna ku horeyno aan soo furno GFX kaleera kadib allow ayaa leedahay kadib application marka uu soo furtid waxaad ka dooranaysaa PUBG ga isticmaashid كوريان استعماشي كوريان بك دورانسا حتى global استعماشينا global marka anaku global baynu soconaa marka saaxiibayaal marka global ka soo doortid kadib qaybtan ayna hagaajinaa resolution ka ka tagno 18 hadii wadid waxaad ka dooransaa 760 aan 20 hadii wadidna 960 50 iyo 70 hadii wadidna kuwan hoose dooranaysaa marka imika tusaalahan kale anaku waxaan dooranaa 760 graphic hadeen doorano isagana waxaad ka dhigaysaa smooth ay ka dhigaysaa FPS ka hadeen dooranay isagana waxaad ka dhigan kartaa 40 FPS ay ka dhigan kartaa hadii wadid 20 iyo 10 hadii wadid hadii wadid 50 iyo 70 waxaad ka dhigan kartaa 90 FPS ay ka dhigan kartaa 20 ga waxaad ka isagana waxaad ka sii dhigan kartaa hadii 40 FPS wax ka garan weydid 60 FPS ay ka dhigan kartaa waa 20 laakiin hadii 10 sidid isagana 40 FPS ay ka dhigan kartaa marka saaxiibayaal isaga markaan ku dhufano 40 ma ka dhigana qaybtan kale styliska hadii soo gudubno isagana ay class ku qorantay colorful ay ka dhigaysaa colorful ka saa marka soo hagaajisid kadib qaybtan quality ayaan soo gudbinaa marka qaybta quality ga 20 iyo 10 hadii sidid 18 sidid loo ka dhigan kartaa medium noo ka dhigan kartaa marka labada kalba ka doon laakiin high wax lagu talagalay dadka 50 wata iyo 70 ay ka dhigan karaan laakiin adoo hadda 20 sidid medium ay ka dhigan kartaa hadii 18 sidid low ama medium marka anigu medium ay leenahay marka qaybta shayda waxa ka wadilmeen si soo dhaafana marka saaxiibayaal color format ka wada jeeda hakan 32 bit wax lagu talagalay 18 ka lagu talagalay saaxiibayaal 64 bit wax lagu talagalay 30 20 iyo wixii ka sareeya lagu talagalay marka hadii 18 sidid 32 bit ka dhigo hatta mobilada ka sareeyana wadadina 64 bit ka dhigo marka saaxiibayaal inta marka soo dhimaysid kadib inta marka saaxiibayaal si soo check garaysid aad iskaga soo hoosid kaliya waxaad ku dhufanaysaa accept ay leedahay saaxiibayaal accept marka tiraadid
kadib waxaad kasii leedahay run game ay leedahay. marka gameka ayuu kusoo kicin doonaa. haddii intaa kaga imanay isaga applicationkan sharaxaadiisa, waxaynu gudbi doonaa hadda applicationkeena labaad la yiraahdo BGT. marka applicationkeena labaad ayaan soo kicinaa. marka saaxiib applicationka markuu uu soo kaco next ay ka leedahay, kadib escape ay leedahay, low ay ka sii leedahay. kadib markuu wajahadan ku soo saaro qaybta gameka xagga sare aad ku dhufanaysaa, global ay ka dooranaysaa, resolutionka waxa ka dooranaysaa 760 ay ka dooranaysaa. waa hadii 18 ka soo hadalnayba mobilada kala sideetna kuwan hoose ay dooranaysaa. marka aad soo doortay 760 saaxiib yaal graphic waxa laga yaabaa balance kan ku saariyay. marka estimate ay ka dhigaysaa isagana FPS ka soo sheegnay 40 FPS ay ka dhigi karaysaa. saaxiib yaal graphic style ka deedan oo iman isagana waxa ka dhigaysaa colorful ay ka dhigaysaa, classic wad ka qaadaysaa. qaybtan kale MSA da waxa ka dhigaysaa on ay ka dhigaysaa, off ay ka ahayd marka adigu on ay ka dhigaysaa. kadib markaad on ka dhigtid hoos ay soo soconaysaa meelaysan quality ku qorantay ku dhufanaysaa. marka codka weyn ka dhigataa high, hadaad 70 ultra ay ka dhigaysaa 50. hadii kalena high aad ka dhigaysaa. badanaa dadku low doortaan laakiin low ma fiicna, high iska dooro. marka intaas soo dhameysay saaxiib yaal, kadib waxaad ku dhufanaysaa xagan ay ku qoran tahay apply. kadib apply marka ku dhufatid run game ay leedahay, sidaas ayuu gameka kugu xiriirinayaa. marka saaxiib yaal sidaas ayaa laaginka looga saaraa PUBG Mobile hadii laaginku dib kugu ahaa. marka saaxiib yaal labada application kolba kii ku anfacay bad ka qaadanaysaa. hadii application koowaad ay ka soo hadalno laaginka ka saaro oo si fiican aad ugu ciyaartid, kan kale waxa uga ma baahnid. haduu waxba ku qaban waayo application koowaad ka soo hadalnay, kan labaad waa inaad ku tijaabisaa. marka saaxiib yaal waxa rajaynaya inaad casharka si fiican u fahanteen. PUBG Mobile casharkeen maanta taas inuu eeg yahay. sidaas nabadgelyo saaxiib yaal. assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.